السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku daaweynta biyaha kulul ee xilliga subaxdii. Ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'aala walaalayaal. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xanuun kasta oo Ilaahay keeno inuu Ilaahay soo dejiyo dawadiisa. Hase ahaatee xigmad rabbaaniya darteed waxa dhici karta mararka qaarkood in Ilaahay bini aadanka u muujiyo xanuunka dawadiisa. Mararka qaarkoodna Ilaahay uu ka qariyo. waxaad wada garan kartaa in waqtiyada qaarkood ay jirtay in xanuuno maanta la daweeyo oo waliba xanuunada ugu dawada fudud ah inay jirtay xilliyo loo yaqaanay xanuunkaas inaanu dawo lahayn. Ilaahay baa xilligaa dadka aan u muujin xanuunka dawadiisa, laakiin maanta Ilaahay wuxuu u muujiyay xanuunka in la daweeyo. waa xanuuno maanta kamid ah xanuunada la daweeyo waliba ugu dawada fudud ayaa xilliyada qaarkood ahaa xanuuno aan dawo lahayn. maantana Ilaahay baa bini aadmiga u muujiyay inay xanuunka dawadiisa gartaan. waa qudrad rabbaaniya. saasi oo ay tahay waxa dhici karta xanuuno aynu maanta u naqaano inay yihiin xanuuno aan dawo lahayn in waqtiyada qaarkood ay iman doonto in xanuunka dawadiisa la helo oo Ilaahay bini aadanka u muujiyo. waa xigmad rabbaaniya weey. mowduuceenu maanta wuxuu ku saabsan yahay isku daaweynta biyaha kulul. sida dhawaan ay dah qaadeen dhakhaatiir badan oo adduunka ah gaar ahaan dalalka China iyo Japan, waxa la ogaaday faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan oo ku duugan biyaha kulul ee subaxdii la cabo. biyo diiran oo qofku subaxdii intuu diirsado kadibna uu cabo kadibna uu isku daweeyo. waxay dhakhaatiirtu sheegeen faa'iidooyin caafimaad oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala geliyay isku daaweynta biyaha kulul ee qofka subaxdii uu cabo. xanuunada ay daweeyaan iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin qayb ka mid ah ayaynu ku soo qaadanaynaa maanta maqaalkeenan. fadlan ila socda wada. faa'iidada koobaad ee laga helo isku daaweynta biyaha kulul waxa ka mid ah biyaha kulul waxay qofka ka saaraan miisaanka saayidka ah ee ku jira jirkiisa. waxay sidoo kale baabi'iyaan baruurta iyo dufanka xad dhaafka ah ee qofka ku duugan ama ku jira jirkiisa. iyadoo dhakhaatiirtu ay ku taliyeen qofka doonaya inuu si degdeg ah uga takhaluso baruurta iyo dufanka saayidka ah ee jirkiisa ku jira inuu ku daro biyaha uu cabayo subaxdii waxoogaa qadar liin dhanaan ah, laymoon, kadibna uu joogtayo muddo bil ku dhow. arrinka labaad ee biyuhu ay u fiican yihiin waxa weeye biyaha kulul ee subaxdii la cabaa waxay dawo dabiici u yihiin oo ay daweeyaan hargabka. waxa kale oo ay daweeyaan caabuqa ku dhaca sanka, cunaha, dhagaha iyo xinjirada. waxa kale oo biyaha kulul jirka ka saaraan dhammaan sunta jirka ku jirta. ayay ka nadiifiyaan biyaha kulul ee subaxdii la isticmaalo. waxa kale oo jirka ka saaraan waxyaabaha ka hadhay cuntada ee qofka jirkiisa ku jira ee jirkuna uu u baahan yahay inuu ka takhaluso isdhaafiyo. faa'iidooyinka caafimaad ee ay leeyihiin ama faa'iidooyinka kale ee laga helo biyaha kulul cabitaankooda waxaa ka mid ah waxay qofka ka ilaaliyaan inay ka muuqato calaamadaha gabowga. iyagoo biyaha kulul ee subaxdii la cabaa soo saara dhalaalka iyo quruxda wejiga. arrinta kale ee biyuhu ay daweeyaan waxa weeye waxay ilaaliyaan oo ay ka hortagaan daadashada timaha madaxa, iyagoo saacida ama waxweeyaan kor u qaada wax ka tara nafaqada timaha iyo soo bixitaankooda inay timuhu soo baxaan. waxa kale oo biyaha kulul daweeyaan oo ay faa'iido u leeyihiin dhabar xanuunka soo noqnoqda, dhabar xanuunka joogtada ah iyo waxa loo yaqaan rheumatismka qofka ku dhaca. waxa kale oo u fiican yihiin wareegga xididada dhiigga, iyagoo ka hortaga unugyada cas ee dhiiggu marka ay yaraadaan. faa'iido weyn u leh. waxa kale oo biyaha kulul dawo u yihiin dhammaan xanuunada ku dhaca caloosha sida gastriga, calool xanuunka joogtada ah, casiraada soo noqnoqota, gastriga caloosha ku dhaca gaar ahaan nooca loo yaqaan H pyloriga. waxa kale oo biyaha kulul wanaagsan yihiin xanuunada
iyo cilladaha ku yimaada micdharada. dabcan waxaa kaloo la sheegaa inay u wanaagsan yihiin in xubnaha jidhku ay si dabeeciya u gutaan shaqadooda. qaabka la isugu daweynayo biyaha kululi waa qaabkee? waxay dhakhaatiirtu sheegeen in la isugu daweynayo qofku subaxdii markuu hurdada ka kaco waxa uu samaynayaa, wuxuu soo qaadanayaa biyo kulul buu diirsanayaa. biyihii kululaa markuu diirsado, macnaha biyaha aada uma kululeynayo si aanay jidhkiisa waxu yeelin. biyo diiran oo nadiif ah ayuu soo qaadayaa, wuxuu ku shubanayaa koobka yaree biyaha lagu cabo ee aynu wada garanayno. kadibna wuxuu ku shubayaa koobkaa yar 4 jeer buu ku ceshanayaa. haddii qofku aanu la qabsan karaynin, maalmaha hore wuu iska yaraynayaa si uu ula qabsado biyaha. 4 koob oo yaryar oo biyo diirana buu cabayaa isagoo calooshiisu ay maran tahay oo qofku aanu wax cuntaa cunin. markuu intaa cabo waxaanu afkiisa cunto gelinaynin muddo ku dhow 1 saac, 45 daqiiqo iyo wax lamid ah. waxay dhakhaatiirtu ku taliyeen carruurta yaryar iyo dadka xanuunsanaya iyo qofka waayeelka ah ee doonaya inuu biyahan isku daweeyo oo iyagoo diiran uu cabo, inaanu marka hore ku bilaabin xaddi badan ee uu qaato wax yar oo ku filan si uu jidhkiisa ula qabsado biyihii kululaa. iyagoo sheegay hadduu marka hore ku bilaabo 4 koob ama 3 koob inay maalintaa hore iyo 2 maalmood hore ama wiiggaa hore ay ku keeni karto waxoogaa dhibaato ah. sidaa awgeed waxay ku taliyeen qofka yar ee carruurta iyo qofka xanuunsanaya iyo qofka waayeelka ah inta jidhkooda uu la qabsanayo biyahaas inay marka hore qaataan xaddi yar. example, isagoo tusaale ahaan isagoo qofku ka bilaabaya koob maalinta hore, maalinta labaadna 2 koob, wiig kadibna 3 koob, wiigga ku xigana 4 koob. markuu jidhkiisu la qabsado ayuu 4tii koob cabaya. waxaynu nidhi qaabka uu qofku isugu daweynaya waxa weeye inuu 4 koob oo biyo cabo oo diiran, kadibna muddo ku siman 1 saac aanu wax cunto afkiisa gelin. isagoo qofku wadaya sidaas 1 saac macnaha kadib uu cuntada cunayaa. waxa uu qofku sidaa dawada u wadayaa muddo xidhiidha 15 cisho, bil, hadba qofku intii uu ku ladnaado. xanuunka markaa isaga haya uu istareemay inuu kaga bogsanayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu weydiisanaynaa inta caafimaad qabta inuu caafimaad siiyo, inta caafimaad haysatana inuu ilaahay u siyaadiyo. aad baa u mahadsantihiin. subscribe channelkeenan si aynu u kala faa'iidaysano. asalaamu calaykum.